السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan la hadlayaa mudane madaxweyne cabdi maxamed cumar iyo ummadda afka Soomaaliya ku hadasha waa khaaduunka noolaha biidnillaahi kariim. waxaan doonayaa inaan kulligeen horta inoo duceeyo ilaahow dembigayaga dhaaf kii waalkay dhaaf, ilaahayow carabka beenta ka ilaali, ilaahow khayaanada naga ilaali, ilaahow kaanagii khaldanna ilaahow soo toosi oo hadee. ilaahow tolkay waxaa ii muuqata intii aan la kulmay wada beenaalayaal afka iyo uurka kala fog, ilaahow iyagana soo hadee. ilaahow nin kastoo madaxana ilaahow soo hadee, nin kastoo muslina ilaahow soo hadee, nin kastoo wax alifayna ilaahayow intaad iga ogoshahayna jannadii gee, intaadan iga ogolayna Soomaaliya ma ogoshiin inaan taallo u dhiso, haddaydan taallo ogolayna inaan u dhiso, inaan u sameeyo webi ubaxa oo idinkuna aad barwaaqada ka cuntaan. maxaan ku dhahaa flower aan dhammaanayn, ama mahadsanid ma laygu qabsanayaa culumoy ama Soomaali ma igu qabsanaysaa? insha Allah haddaan mawduuca dhex galo, intaasi waa ducadii guud. nin kastoo madaxana waxaan rajaynayaa inaan la habaarin oo la duceeyo, xanaaq waa halkiisa. waxaan mudane cabdi maxamed cumar toos u weydiinayaa, anigu waxaan ahay khaaduunka noolaha, waxaan wataa barnaamijka jaamacadda cagaaran kuliyadda dhaan dabagaale. naasahooyo waa imisa dhibic hindhiso, dhibic dhaqaale, dhammaystirka gaajada, qurmoonkeeda, xeeladeeda, xirfadeeda iyo xaaraanta ay wadato oo dhan. mawduuca mudane madaxweyne aan jecelahay inaynu iska cafino, inaynu aad baan ku xantay inaynu iscafino iyo ogolaato inaan kaga tago calaamad khayr qabta toga jarrada iyo faafan iyo hawd, kabacdina aan u gudbiyo maryooley, kabacdina Afrika maxaa ka dhigay xeradii gaajada. waad iga soo diiday. runtu haynu isku taabano, maduulka kaa hooseeya ayaa been kuu sheegi jiray. haddii duulka kaa hooseeya marka hooyada laga bilaabo, abtigaa in adeerkaa suldaankii cali yuusufka garaadkii kumadaha samayseen jiray markii horeba, Soomaali maryooley, shaqaalihii, wasiiradii, kullu ma wada beenaalba. aad baad dhinac u ayaan daran tahay, dhinacna iyaga ayaan daran. barnaamijka waan ka sheekeyn doonaa bulshadan baaba'san. nin kastoo wadanka madaxweyne ka noqda ayaan daran yahay, aad buu ayaan daran yahay. ummaddan soo arkay waa ummad istaahisha karbaash iyo wax ka badan. haynu runta isku sheegno. mudane madaxweyne, hal nin oo xukunkaaga jecel waan soo waayay. hal nin haddaan ku idhaaho ninka ugu jecel waa aniga, xukunkaaga ninka ugu jecel, ninka aniga kula hadlay runta ku sheegi ugu jecel. ummaddan bal in laga helo in ilaahay rogin oo anu aan ka soo jeedo, bal ilaahay ku badbaadiyo. kulli intaan la kulmay afkooda iyo wejigooda iyo uurkoodu waa kala gaar. jid waaqaa sacabka kuu tumaya waa beenaalayaal, way ku necab yihiin, anay ikaas necab yihiin. ogaadeenkuna sidoo kale waa maslaxad raadis iyo raq raadis. waxaan ilaahay ka rajaynayaa inta wanaagee waddanka u qabatay inaad in kaloo ka fiican usii qabato, laakiin xumaantan aan xadka lahayn inaad joojiso. anigu waxaan ahay khaaduumka noolaha, waxaana leeyahay sumadiinii ree aadan turaab baan ahay, Soomaali baan ahay, ree kumadihii aad sheegaysaan ahay, absamihii aad sheegaysay, jid waaqii aad nabcayd ama jeclayd baan ahay, kasii soco, abtigaa baan ahay. waxaan doonayaa inaad mudane madaxweyne iga jawaabto intaas oo qabiil qoyska Soomaaliyeed oo khalad u dhintay waan u doodayaa, laakiin balbarta aad u bugtaan ama dadku jecel yahay hantaabto. nin jid waaqaan ahay mudane madaxweyne, nin jid waaqaan ahay. caawa waxaan ahay nin jid waaqa u doodiyo jid waaqa xuquuqda. berrina waxaan noqon sheekhaal baan u doodi haddii la waayo wax u dooda. ogaadeen baan u doodi wax u dooda. gadabuursi. okay, isaaq, waxaan ku weydiinayaa mudane madaxweyne, culimmadii reer jidwaaq ee lagu laayay mooyaha maalintii mugdiga badnayd, mudane madaxweyne maxaa loo laayay? jawaab waa jawaab
ayaan u baahanahay maalintii ay bilaabantay dilkaasi maalboon baan joogay 500 minus 500 iyo kontonka kiiskii ahaa iyo kuwa lamidaan u joogay ilaa maalinkii su-aasha waan u baahanahay mudane madaxweyne okay saddexdii jeer ama afartii jeer marra lagu dalbaday saraakiisha sare ee Ethiopia mula ee la gubay marra booliisku uu laayay marra oo in laf ay laysay bal gartay saraakiisha Ethiopia iyo booliiskaaguye oo in laf maxay u laysay maxaad uga qaban weyday ileen mula mucaarad ma aha mula ogaadeenna ma aha okay maxaa aad missionkaas ninkii fulinayaba adigu ahaa okay mudane madaxweyne raggii la dagaalamay maxaa loo xiray waa raggii la dagaalamay maxaa loo xiray oo lafta mudane madaxweyne buladari raggii lagu laayay maxaa lagu laayay mucaarad mayna ahayn hore khalifa raggii lagu laayay maxaa loo laayay mucaarad ma ahayn shabeelay iyo agaarkeeda raggii lagu laayay maxaa loo laayay mucaarad mayna ahayn kuwa jigjiga dhulka la jiiday la laayay jeelka ku dhintay ku ciil ku dilay maxaa sabab u ah mudane madaxweyne laba tol baad lahayd oo hal tol isku ah kuumade aad ka dhigtay qoysna si toosaad xabadda ula dhacaysay magtiina waad siisay okay raqdiina iyaga keliyaad siisay okay jid waaqan aad baabi'isay ayna Soomaali ogeyn waxaan doonaynaa anigoo ah khaadimka noolaha jid waaqna ah maxay u dhinteen jawaab baan ka rabaa mudane madaxweyne Cabdullaahi Toobi dameerka Cabdullaahi Toobi ee dadnimada lahayn baad ku adeegsatay okay haddaba ninkii aad ku adeegsatay maanta muxuu u xidhan yahay ninkaas waa ninkan jijiga 4 sano uga soo cararay waa ninka odayaashanadii dhulka jiiday waa ninkii jid waaq aad ku baabi'isay okay haddana maanta muxuu u xidhan yahay waa ninka telefoonka ku xukumay nin jid waaqa hadduu ka maqlo inuu jeel gelayo hadda la socon ogaadeen iyo ONLF lama mamnuucin jigjiga anigan ay laygu sameeyay ninka telefoonkiisa lagu arko jid waaq ama ereyga jid waaq ilaaha wuxuu gelayaa jeel laakiin nin ogaadeena ama ONLF oo jeel hadii lagu qabto jeel gelay ma jirin ninkii arintaas sameeyay Cabdullaahi Toobi buu ahaa ma adiga u dajiyay iyo xulufadaada mise isaga jeebkiisa ka samaystay mise uu kula tartamayo tartanka waxay ahayd inta ogaadeen aad ka laysay isaguna inuu ka soo laayo jid waaqo waxa tiri soo laa ka bacdi baan kursiga kugu wareejinayaa sheekadu masaasay ahayd mudane madaxweyne dalkan iyo ummadan waxaad u tarayso waxaad yeelaysaa ka badan okay dhaqankii baa guuraya okay bankrab baa ummadii ku dhacday ama moorduug way dhaaftay bankrab ummadan sidaa loo bahdilay aad ninkan ugu baadishay haddana waad xidhay muxuu u xidhan yahay Cabdullaahi Toobi 4 sano uga soo cararay jigjige dirc iyo googorad baan u iibiyey okay nasiib darro inaan u geeyaan doonayay waan gaari kari waayay okay mudane madaxweyne maanta markaan aan jijiga aan joogina waxaan isku dayay inaan lawyer u noqdo oo difaaco waa la ii diiday iyadoo la ii diidin baa la ii diiday yaa ii diiday Cabdullaahi Toobi wuu istaahilaa xiriga iyo ka badan ba wuu istaahilaa laakiin kuwa doqomada ee jiida ah dabaaldeg ee sacabka ku tumaya ee beenaalayaasha ah Cabdullaahi Toobi wuxuu u xidhan yahay mar labaad baad ku dilaysaa Soomaa haddaba xiniinta aad u faanto ogaadeenka iyo jid waaqa aad tiraaho nin raabtiyay waa kuwa xabadda uu saraakiisha laayay booliiska laayay oo aan laf laayay haddaba kuwii aad ku faanaysay baan ahay xiniintoodii baan wataa mudane madaxweyne filinkan facebookayga khaadunka noolaha insha Allah baa la yiraahaa youtube-ka ayaan ku soo dhigayaa riyo luntay raadkeed riyo lumaysa raadkeed iyo barnaamijka dhaandaba gaale haduuna xalin isoo raacin xalin mudane madaxweyne waxaan sameynayaa insha Allah qiso aan dhamaad lahayn iga soo jawaab kuwa badan oo ila midoon hadii kareen uga jawaab Cabdullaahi Toobi muxuu xidhan yahay ma wuxuu xidhan yahay dhabaha dhaandaba gaale ku gaarka ah
mise mar labaad baad ku laynaysaa oo xinintooda aad taabanaysaa. mudane madaxweyne, gurigii cabdulaahi toobi maxaad u qaadatay? aad baan ugu faraxsanahay inaad qaadato ood xukunto oo waddadaa aad jeexdo, laakiin waxaan kaa rabaa horta nin kastoo cali yuusuf ahoo guri yeeshay inta aad adigu xubka timid oo dhan inay soo wareejiyaan. gurigaygana gurigaygii kuu hiiliyey, kuumadaha kaaga hiilinayey, reer dhagaxbuur kaaga hiilinayey, jijiye kaaga hiilinayey, oo walaalkaaga nasab hal xaada aan lahayn uu ka guuray 4 sano ka hor, aduu meelahabaad nasab ka tahay. okay, gurigaygana qaado 21 milyan buu joogaa. beerihii reer cali xuseen oo dhanna qaado. jaamacadda cagaaran waxaan ka bilaabayaa Australia iyo Africa, laakiin waxaan jeclahay inay ka bilaabanto Togo Jarareed iyo Faafan iyo Hawd. mudane madaxweyne, waxaan kaa baryay oon magaca ilaahay iyo wuxuu abuuray iyo intuu magac uu leeyahay in la yaqaano iyo inaan la aqoon iyo intuu wax abuuray bashar dhaguxu ku jiro buuraha hawada ayaan kaaga dalbanayaa inaad barnaamijka ka bilowdo. hawadan kaa siinayaa kuwa xafiiska jigjiga ee researchka jooga iyo jaamacadda jigjiga iyo hay-adaha kala duwan ee gaarka ah. wax alla waxa beer ilmo cali xuseen lahaa, haddii xaq laga hadlo gabdhaha ilmo cismaana intii loo qaybiyo inta igu soo aaday aniga waxaan ku bixinayaa barnaamijkan. gurigayga waxaan ku bixinayaa barnaamijkan. beerak ani ii gaara waxaan ku bixinayaa barnaamijkan. mudane madaxweyne, intaas oo dhan baan kaaga dalbanayaa. barnaamijka ha laga bilaabo Togo Jarareed iyo Faafan iyo Hawd si aan bulshada kale ee caalamka iyo noolaha aan u gaarsiiyo. su-aashanna iiga soo jawaab. culimadii reeji maxay ku dhammaadeen? maxaa lagu laayay xanuunka badnayd? ma la socotaa nin kasta oo disho okay, waa familkayga dhinacu doonaha ahdo. ma la socotaa reer cismaan inta ka dhintay ee booliisku laayay? mudane madaxweyne, waxaan isku dayay inaan intaana dhiman anu xaggayga aan ku cafiyo haddii barnaamijka aad bilowdo biidnillaahi kariim. oo hawada ma kuu soo noqonaye. gurigaygiina qaado sad cabdulaahi toobikiisa u qaatay. kaygu wuxuu joogaa 21,000 USA. ninka guriga markhaati ka noqonaya iibinayana waa ninka la yidhaaha Axmed Gurey, okay, ee dilaalka ah. ninkaasi taariikh baan ka hayaa. calaamad absamaha aana ku aqoon baan ku arkay. calaamad ogaadeenka aana ku arag baan ku arkay. inkastuu gadaal ka sheeqay, ninkaasna markhaati buu ka noqonaya dilaaliinta iyagoon dilaal qaadanayn way ku darayaan. gurigayga 21 jooga waxaan ugu deeqay barnaamijka jaamacadda cagaaran. ummada imaqla, ummadda soomaalida imaqla, ummadda etoobiyaanka imaqla. anigu waxaan ahay khaadimka noolaha. beerahaygii sidoo kale. barnaamijkan insha allah wuxuu ka bilaabanayaa soomaalida kale, Jabuuti, Kenya, laakiin riya luntay raadkeedu waxay ka bilaabanaysaa Qoraan, Dubur, Dannabo, Daadhi, Harre. waxay ka bilaabanaysaa Mooyaha, Dhagaxbuur, Jigjiga, Mooyaha inta u dhaxaysa. riyadii aan yaraa, balanbaalista aan la ciyaarayay, engineering design revolution. waxaan rabaa nin kasta oo wax soo bartay iyo hooyada hararka taqaana inaad isu keento. barnaamijku wuu inoo soconayaa. ikhyaaray, salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.